توسا ربي أسجود بريا ربي أسجود ركوعا ربي أسجود بريا ربي أركوع أسجودا diiwaan waliba uu gaaro meesha u dambayso aragga gaaro markaas baa waxaa la weydiinayaa miyaad wax ka xusuusataa dembiyadan miyay ku dulmiyeen malaa'igtayda qora camalka wuxuu oranayaa maya rabbigayow waxaa la weydiinayaa ma haysataa wax cudurdaar ah ama ma leedahay wax wanaag ah wuxuu ninkaa oran doonaa maya markaasaa waxaa lagu oranayaa maye waxaan ku haynaa xasanad mana lagu dulminayo maanta markaasaa waxaa la soo saarayaa bidaaqad yacni kaar ay ku taal ashhadu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan cabduhu wa rasuuluh waxaan qirayaa oo ka marqaati kacaya inuusan jirin la caabudo xaq ah aan ahayn allah iyo in muxamed yahay addoonkiisa iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasalam markaasuu wuxuu oranayaa rabbigayow maxay ka taraysaa bidaaqadan waxaan oo diiwaano camala xun ah iyo dembiyo markaasaa waxaa lagu oranayaa laguma dulminayo markaasaa waxaa laga saarayaa diiwaanada dhinac miisaanka dhinaca kalena waxaa la saarayaa bidaaqada markaasaa waxaa fududaada diiwaanadii oo cuslaada bidaaqadii alimaam addahabi wuxuu siiyey xadiiskan darajo ah saxiix ibnulqayim allah u naxariistay wuxuu yidhi marka camalada kuma kala saramaraan muuqaaladooda iyo tiradooda laakiinse waxay ku kala kormaraan niyada iyo qasadka laga leeyahay ee qalbiga lagu hayo waxaana suuragal ah in hal camal isku si loola yimaado iyo muuqaal laakiinse ay isu jiraan xagga kala wanaagsanaanta inta ay isu jiraan samada iyo arlada niyada darteed wuxuu yidhi oo u fiirsada xadiiska bidaaqada ee lasoo saaraya hal dhinac miisaanka aynu qaabilayaan 99 diiwaan waliba gaara halka uu aragga gaaro sidaasoy tahay waxaa cuslaan bidaaqada oo yaraan miisaan ahaan diiwaanadaas sidaas darteed aan qofkaas loo cadaabayn waxaana la ogyahay in qof kasta oo muwaxid ah muslim muwaxida uu leeyahay bidaaqada oo kale iyagoo in badan ay ku galayaan naarta dunuubtooda maxaa kala duway haddaba labada bidaaqo waxaa kala duway waa niyada iyo qasadka iyo heerka ikhlaaska xagga qalbiga ah qof si dhan oo khaalisa qalbiga uga yiri lamid ma aha mid ay wax ku jiraan oo raadiisa oo si dhan oo khaalisa qalbiga uga oran لغير الله ما أسلمت قلبي وأنكرت التقلب والرجوع فأحسست السكينة في حياتي وألفيت السعادة والربيع waxaana ka mid ah kani xadiiska ninkii waraabiyey eyga warina waxay leedahay naag xun oo sharmuuto ahayd oo ka mid ahayd ilmihii Israa'iil waxaa laga soo wariyey Abu Hurayra allaha ka raali noqday in rasuulkii Ilaahay sallallahu alayhi wasallam yiri mar isagoo nin socdo oo wadahaya buu aad u haraaday markaasuu wuxuu helay ceel oo inta ku dagay biyo ka soo cabay oo ka soo baxay markaasuu wuxuu arkay ey ooman oo cunaya ciida oon dartay ninkii wuxuu isku la hadlay eygan